Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada muuqaal kale oo ay maanta kaga hadli doono dad muddo dheer cadaalad darro u xidhnaa oo xorriyadoodii helay. Andrew, Alfred iyo Ransom waa 3 nin oo Maraykan ah oo ku noolaa gobolka Maryland ee dalkaasi Maraykanka. Waxay muddo 36 sano u xidhnaayeen dil aanay geysan. Maxkamad ku taalla gobolka Maryland ayaa toddobaadkan xorriyadoodii u soo celisay iyadoo ka raali gelisay dembigaasi ay u xidhnaayeen inaanay gelinba iyagu balse ninkii dilkaasi geystay uu dhintay sanadkii 2002. 3 nin ayaa kaga soo baxay xabsiga cadeymaha markii la helay makhraatiyaal sheegay in ninka la dilay ninkii dilay uu dhintay 2002 balse 3 nin lagu soo eedeeyay ninkani dileen aanay gebi ahaanba dilkaasi waxba ka ogeyn aanayna geysanin wax dila xilligaasi. xilligii la xidhay waxay ahaayeen raggani 16 sannadood balse haatan 36 sannadood kadib ayay ka soo baxeen xabsiga ku yaala gobolkaasi Maryland. Warbaahinta Maraykanka ayaa si weyn u falanqeynaysay magdhowga lacageed ay heli karaan dadkani cadaalad darrada u xidhnaa muddada dheer. Inkastoo ay sannado badan xidhnaayeen balse waxa hubaal ah in magdhow kasta oo la siiyo aanay u soo celinaynin waqtigii muhiimka ahaa ee kaga lumay xabsigaasi ay muddada dheer ku xidhnaayeen. Waa wax iska caadiya dalka Maraykanka in dad muddo dheer xidhnaa la sheego sannado badan kadib inaanay wax dembiya lahayn kadib marka la sameeyo baadhitaano dhaadheer. Garoo raggan iyo kuwo kale oo badanba waxaa hore ugu dhacay xabsiyo kala duwan. Sidan oo kale ayaa wiil Soomaaliya oo lagu magacaabo Xaashi Cumar Xasan sanadkii 1998 magaalada Roma ee dalka Talyaaniga lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu eedeeyay in uu dilay gabadh u dhalatay dalka Talyaaniga oo suxufiyad ahayd sanadii 1994 taasi oo lagu magacaabi jiray Ilaria Albi. Balse Xaashi Cumar Xasan dhowaan ayay maxkamad ku taala dalkaasi Talyaanigu ay sheegtay inaanu wax dembiya lahayn kadib markii dadkii makhraatiga beenta ku furay ninkani Soomaaliga ah ay ka laabteen makhraatigaasi ayna sheegeen in makhraatiga ay fureen uu ahaa been abuur. Haatan waxa uu Xaashi sugayaa lacag magdhow oo tiro badan inkastoo maxkamad ku taala dalkaasi ay u xukuntay 4.2 milyan balse isagu haatan waxa uu ku doodayaa in lacag intaasi ka badan uu doonayo maadaama uu xidhnaa muddo aad u badan oo waqtigiisa ka mid ah. Intaasi ayaynu ku soo koobaynaa xubintan kooban aynu ku eegaynay dadkan cadaalad darrada ku xukunaa ee muddo dheer kadib xorriyadoodii helay.